Hargeysa waxa ay dhawaan ku dhawaaqday in wadahadal dambe ay la gali doonaan Muqdisho. Diidmada Somaliland ayaa daba socota safarkii ra'iisul wasaare Xamse ee ku tagay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Maamulka Somaliland ayaa weli dhulkiisa u yaqaan aagga ay maamulaan. Taliska hogaamiye Ciro ayaa xogaa kor u soo qaaday rajada ictiraafka, laakiin booqashada ra'iisul wasaare Xamse ee magaalada Laascaanood ayaa dhaawacday qariirada buddiga u ah ololaha ictiraaf doonka ee Somaliland. Tan iyo 2010 waxaa jiray wadahadallo wax ku ool ah oo dhexmaray dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Somaliland, laakiin joojinta wadahadalka ay go'aamisay Somaliland ayaa dhalin doonto 3 qodobood oo caqabad ku ah Hargeysa. Midda koowaad waa ogolaanshaha ictiraafka. dalkii ugu dambeeyay Afrika ee ku yaala ee dalka waa waxa uu ahaa South Sudan. muddo dheer kadib waxa ay dib u sugaysay aqbalaadda Khartoum. si la mid ah Somaliland waxay u baahan tahay aqbalaadda dowladda federaalka haddii aan la wada hadal weligeed aqbalaadda ma iman doonto. midda labaad waa mashaariicda. wadahadaladii Somaliland iyo dowladda federaalka ee ka dhacay magaalada London bishii June 2012 waxaa lagu go'aamiyay in Somaliland loo fasaxo dhammaan mashaariicda iyadoo la soo marin doono dowladda dhexe ee Soomaaliya. tilaabooyinka siyaasiga kuma jirin waxa la fasaxay waxa ay ku ekeyd mashaariicda oo kaliya iyo horumarinta samafalka. muddo markii ay siyaasi ku socotay dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa amartay in wax walba Somaliland la siinayo in soo marsiiyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, taasi ugu dambeyn ay beesha caalamka aqbashay. waxaa la xasuustaa in markii uu gubtay suuqa waaheyn magaalada Hargeysa in lacag $12 milyan oo dollar ay ka xirneyd Somaliland ay u fasaxday dowladda federaalka ee Soomaaliya. sidaa awgeed haddii ay wada hadalladii istaagaan wada shaqayntuna waa istaagi kartaa, taasina waxay culays ku tahay Somaliland. midda saddexaad waa dagaal siyaasadeed. dhawaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa u ruqaansatay inay aqoonsi siiso maamulka Khartoum, shaqadaasi oo hadda dhamaystirkeeda ay socoto. marka mowduuca midnimada laga tago, dhinaca kale tilaabadani waa dagaal siyaasadeed. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay weli awoodaa inay dhageysato doonista reer Sanaag ee maamulka Maaqir iyo mid reer Awdal. markii si guud loo qiimeeyo falanqeeyaashu waxa ay leeyihiin maamulka Somaliland waa ay ku degdegtay inay joojiso wada hadallada. haddaba sidaa aragtaa adiga?